madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seelici iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland ayaa saaka hoyga uu ka degan yahay Abwaan Hadraawi ku booqday ee magaalada Burco. Abwaanka ayaa muddooyinkii u dambeeyay laga deerinayay xaaladiisa caafimaad. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seelici ayaa waxa uu abwaanka ugu duceeyay in Ilaahay siiyo caafimaad taama. كل الدعينو إلهي عافمات الحمد لله دائما تهي أبوانك وأنا وخاصة مقع الصومال كهلا فما أنا تهي كل يا تهي كوسو بوقني وأنا سومال شعل بس كل دعينو يا أخونا مني أنت وفتي على هالمنطقة شغالنا بدبرعه شغالين وانا بيسنين هم بحنا هذا أخذ على خلاني مني وأنا كل دعينا هذا عافمات غلق Abwaan Hadraawi oo muddooyinkii u dambeysay xaaladiisa caafimaad aad looga dayrinayay ayaa ilaa iyo hadda waxaan wax ballan qaad laga haynin xukuumadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo ku soo booqday hoyga uu ka degan yahay magaalada Burco. Abwaan Hadraawi ayaa waxa uu baahan yahay in xaaladiisa caafimaad dalka dibadiisa si kastaba ha noqotay muddooyinkii u dambeysay ayaa isa soo tareysay xaaladda caafimaad ee Abwaan Hadraawi. Wanuux Maxamed Cabdi, Badda Cas 24 TV, magaalada Burco.